qada sharafta ah ee qiimaha leh ee intaas oo maxaan ku raahdaa maamuus iyo rag mudan leh halkan inoogu soo kan yeedhay ee isagoo ku sharifaya duuliye sare Axmed Deere Bakeelo run ahaantii ah nin mujaahida oo aad bada caafimaadka ugu tirsanaa markaanu hawskii joognay oo aan SMT joognay run ahaantii markaad eegto de ninkani wax qabad fiican buu sameeyo de xabadii loo soo buuxiyay ayuu ka badbaadiyay ummadan uu halaagi lahaa isagoo u tuuray aayihiisa iyo aakhiradiisa iyo dhinac kastaba waxay ku xidhantahay waxa weeye Soomaalinimadu inuu qof kasta iyo muslimnimada in qof kastaaba uu isku dayo in isugu badbaadin lahaa ummadda maanta oo ay taariikhdu tahay bisha 12/2020 lixdeedii waxaynu isugu nimid casuumadan ama xafladan oo lagu soo dhaweynayo ama lagu sagooteeyo bayladkii bulshada reer Somaliland 1988 dagaaladii halkan ka socday ninkii u hiiliyay dadka reer Somaliland isagoo fulinaya waajibka islaamnimada wadaniyada mas'uuliyadiisa shakhsiga ah diiday amarkii la soo siiyay ee ahaa inuu ku xasuuqo dadkan diyaaradii dagaalka ee faytarka ahayd oo dadkan cashuurtoodii laga soo iibiyay isaguna uu wax ku bartay cashuurtii dadkan oo lagu amray inuu xasuuqo dadkii civilka ahaa ee ka qaxayay rasaastii ka dhacaysay magaalooyinka Burco iyo Hargeysa inankaasoo markii amarka lagu soo siiyay inuu hawshaa galo isagoo Ilaahay ka yaabay oo muwaadinimadiisa ka yaabay oo xusuustay waajibkii uu u dhaartay inay dadkan yihiin dadkii ay ka caaganayd hubka uu sitaa inuu ku rido oo intuu diyaaradii soo buuxiyay uu bamamkii ay siday meel bannaan ku tuuray uu riski ku galay inay amba ku gubato ku dhinto ama uu ku badbaado arrinku u yimi bariisun baynu siinaynaa war bariis wax dhaama ayaynu looga baahan yahay ninkanaynu meesha ka dirro waree gabadh cusub buu guursaday reer buu leeyahay meeluu degaa buu u baahan yahay ilaa iyo maanta jeel buu ku jiray war ilaa iyo maanta magaalo yaroo leeyahay Luxembourg buu jeel ku jiray ayuu ku jiray oo qof madoobaba joogin dhowr iyo 30 sano dad muu arag dad halkan ugu horreysay ugu yimi ninkanu wax badan dawran maaye wuxuu qabtayna waa garanaysaan wixii inoo qabtayna waree dadkan oo dhammaan dadku xabadda ka daayay dhankiisa Mujaahid Cabdilaahi Cabdi Muuse oo soo agaasimay qada sharafadan wuxuu hoosta ka xariiqay ujeedada munaasabadan caasimada waxa ahayd in aanu Axmed u mahad celino oo uga mahad celino wuxuu ummadiisa u qabtay dadkiisaba tii ugu wanaagsan ee uu soo qabtay oo ahayd dadka ka dibay dawladdii la yiri ku soo garaaco dadka ku soo la geesinimada uu sameeyay waa mid u qoran Axmed oo rag maanta halka kula jooga waxa weeyaan aan ku kala sheegay niman la ilaa ufo oo nimankii halkan kaba nagu bilaabay oo awgood aanu soo dagaalgalay nimankaasi meesha maanta ku casuubeen waxa ku casuubeen nimanka la dhakhtaradii kaba lahaa ee sanamta dhakhtarada kaba lahaa oo ninka uu koombe imka hadlayay waa Salmaan Cabdi Guuleed waa Ismaaciil Cali waa nimankan dhakhtarada meesha oo garaad waa xankuul waa Axmed Cumar Askar waa raggaas oo dhakhtarada kaba lahaa oo oran jiro beerfi doctoriski China ay magaca ka soo xadeen marka nimankaas oo dhimanaagaas ku joogan ufo way ku timid waxa kale oo halkan kula jooga aqoonyahankii qoriga qaatay ee ka dagaal galay waxa jooga nimankii u sharaxnaa ee halkan ka inta soo galeen siyaasadda dibadda ka joogay nimka soo galayna oo dhowr nin oo kala soo baarlamaan oo xisaabta u kala qaybsana ayaa meesha wadaasay waxa kula jooga qurbaha waxa laga shaqeyn jiray Jidda iyo meesha lagu yiraahdo London iyo meesha lagu yiraahdo Mareykanka saddexdaas ugu xoog roonaa ragooda halkan ku dhayino qoladii Mareykanka ugu yiraahdo qaylo badnayd iyo qoladii Ingiriiska hadda jirtay iyo qoladii maxaa kula Jidda hadda jeer burka seen jirtay intuu meesha oo joogan waxa kula jooga nin inta markaa halkan wada joogta dhamaadkeed aqoonyahankii bahasan u dhigay salka ee ka dagaal galay ee la baray si qoriga loo qaado hadda ana ka mid ahaa oo iska miskiin oo aan wax la waxan garanaya silmi qori dhibay oo la ridaari dhago inaana meelada ay dhigo u kiciyay cid kale kuma ka kan la socda ilaa in dhigo inuu ahaa
nimankii waxaa soo wada maray oo isa soo wada raacay nimankii halkaa oo isa soo wada raacay ayaa maanta qaadan kugu sameeyey si ay ku yidhaahdaan aad iyo aad ayaad ugu mahadsantay waxqabadkaagii ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay duuliye axmed deere waxaana uu ka mahad celiyey qada sharaftan lagu maamusay isagoo sidoo kalena sheegay in muddadii uu ku sugnaa somalilan loo fidiyey caasimado badan oo dhammaantoodba ahaa kuwa lagu maamusayo duuliyaha dhammaan waa salaamiyiin walaalaha maanta halkan iskula kulannay oo aad iyo aad kulankan qiimaha badan leh iyo qada sharafkan oo noo soo qabaqaabiyey walaalkan cabdullaahi يعني مجتمعاس نوعياش بدنا وفو إلى دليرة مارتا دا يرو أينا متقنا إلى أنت ودي حيسة وقيبها فربنا ككومان آدي هذا ما تسنتين وحسيت مدن إن بريها بأن هل كان مدلل بلوت كل اللو إن المرتقاديو يسوع دوين شرف بدن تشريفات يا كرم وح آد وبلار إنا كلا كل بي هذه هذا أمتين ولا لها سومالان وها سيدوك على حسد مدن إن ولا لها سومالان إيه دت سومال نمدا يا ولا تنمدا يا قدرنتا دت كردير أو دي دقن وله إن يهين إن محايرة هذا يشك مركز لقرب ما ملك يا دولة نمدا إلا كلا غيبيو walaaltinimadu waxay u joogtaa iyo iskaashiga walaaltinimo ee Soomaalida waxay u joogtaa meeshii 60kii ay joogto kale waxa kaliya oo la isku hayo waxa weeye waa dawladnimada in la kala qaybiyo oo qolaba ayagoo walaalo ah oo ehel ah oo